tani waa kooxda Liverpool. waa kooxda ugu guulaha badan qaaradda Yurub ee ka dhisan wadanka Ingiriiska. Waxay ku guuleysteen koobka Yurub ama Champions League tiro 5 jeer ah. 8 sano gudahood ay 4 jeer ku hanteen koobka Yurub intii u dhaxaysay 1976 ilaa 1984. Sanado badan kadib waxay dib ugu soo laabteen qaaradda Yurub iyagoo shiday holac lama filaan ah. ciyaar mucjiso lagu tilmaamay ayna ku dileen kooxda Milan kulan dhacay bishii May 2005 markaas oo ay 3 gool ku dhaliyeen 6 daqiiqo koobkina kaga soo qaateen magaalada Istanbul. Liverpool sanadihii xigay waxay soo gaareen heer fiican tartanka Champions League ama koobka Yurub ilaa markii dambe ay yimaadeen finalka sanadii 2007 markaas oo ay ku baxeen gacmaha Milan oo Argos ahayd. sanada aamusnaan ah kadib fasalkii la soo dhaafay ay wacdara ka dhigeen qaaradda Yurub markaas oo ay gaareen finalka iyagoo jid marka dhigtay kooxaha Porto, Manchester City iyo AS Roma. finalkii ka dhacay magaalada Kiev ee wadanka Ukraine waxay ku baxeen gacmaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo markii 13aad u dabaaldegtay hanashada tartanka Yurub. dhaawac soo gaaray Mohamed Salah iyo qalad uu sameeyay goolhayaha reer Jarmalay Loris Karius ayaa sababtay geerida wiilasha macallinyahan Klopp. Sends it forward here towards Benzema. He got the option to Marcelo. Oh, and then Karius, oh, it's gone in. Oh no! Oh my word! Karim Benzema with a goal, and Liverpool can't believe it. What a way to go behind. 3 in the box waiting for the cross, and it was Bale. Oh, what about that? What about that from Gareth Bale? Off the bench with there's a shot. Oh, he's dropped it. It's Gareth Bale again, and it's a howler from Karius. 2 goalkeeping errors tonight by Karius have cost Liverpool so dear in the Champions League. marka laga soo tago sheekada guulaha la xiriirta ee qaaradda Yurub iyo inay yihiin kooxda ugu guulaha badan ee Ingiriiska ee qaaradda Yurub haddana Liverpool waa koox ka aradan dhanka horyaalka Ingiriiska muddo 28 sano ah. Steven Gerrard, the captain, slipped and Bar scores. Chelsea have the lead and Chelsea have won the game. Liverpool's title challenge derailed, but it's now out of Liverpool's. kuma guuleysan tartanka Ingiriiska tan iyo markii loo bixiyay magaca Premier League horaantii 9-aadkii. Liverpool fasal ciyaareedkan waxa uu yahay midkii 57aad oo ay si xiriir ah uga soo qayb galaan heerka koowaad ee Ingiriiska. sidoo kale waa markii 27aad oo ay magaca Premier League si joogto ah ugu ciyaarayaan.
awoodda guud ee Liverpool waxay fasalkan u muuqataa mid argagax ku ridi karta kuwa ka soo horjeeda habka uu suuqa u galay Jurgen Klopp ayaana kaamil ka dhigtay kooxda ka dhisan garoonka Anfield maadaama uu iska adkeeyay boosaska ay kooxdiisa ka liidatay fasalkii la soo dhaafay macalinka Jarmalka ah waxay kooxdiisa gashay kaalinta afraad ee horyaalka fasalkii la soo dhaafay sidaa daraadeed waxaa kooxdiisa ku soo biiray Naby Keita oo kaga yimid kooxda kubadda cagta RB Leipzig isla markaana sheekadiisa la dhameeyay xagaagii hore ee 2017 Fabinho oo ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta ee Monaco ciyaaryahanka reer Switzerland ee Xherdan Shaqiri oo isna ay ka badbaadiyeen xabsiga heerka labaad ee kooxda Stoke City iyo goolhayaha lagu sheegay inuu yahay miisiga goolhayaasha qaaradda Yurub ee Alisson Becker kaasoo ay ka keeneen kooxda kubadda cagta ee Rome ee ka dhisan caasimadda waddanka Talyaaniga dhammaan ciyaartoydaas waxa ay ku yimaadeen garoonka Anfield Road adduun dhan 174 milyan oo pound sida lagu qoray xog aruuriyaha Wikipedia oo maqaal dheer ka qoray sheekadaas awoodda Reds waxay ku tiirsaneed fasalkii la soo dhaafay saddexleyda weerar ee Mane, Salah iyo Firmino gaar ahaan wiilka reer Masar ee Salah iyo sidoo kale dhowr xidig oo naftood u horay kooxda balse markan waxay kooxda heshay dhiig cusub oo ugu yaraan wax ku soo kordhin kara cabsida kaliya oo ay jamaahiirta kooxda Liverpool qabaan waxa ay tahay inay waqti dheer qaato inta uu Jurgen Klopp isku raadinayo shaxda ugu habboon kooxda maadaama ay ciyaartoy cusub yimaadeen qiimeyn la sameeyay ayaa lagu ogaaday in Liverpool ay ugu yaraan galayso saddexda kaalin ee ugu horeysa xilli ciyaareedka bilaaban doona sidoo kale dadka ugu badani waxay u saadaaliyeen in Liverpool ay soo afjari karto dhibaatada ka haysata inaysan ku guuleysan horyaalka Premier League tan iyo markii magacaas la bixiyay sidoo kalena aysan ku guuleysan in ku dhow 30 sanadood horyaalka Ingiriiska heerkiisa koowaad dhinaca kale marka aan fiirino Liverpool xagaagii la soo dhaafay waxa ay ku tiirsaneed awoodda uu leeyahay ciyaaryahan Mohamed Salah kaas oo 60 gool ka qayb qaatay fasalkii la soo dhaafay 44 gool ayuu dhammaan tartamada oo dhan gool dhaliyay sidoo kale waxa uu caawinad ka geystay 16 gool inkastoo aan mar kale la ogeyn sida uu u muujin doono bandhigiisa joogtada ah haddana wixii uu dhigay sanadkii hore ayaa weli abuuri kara cabsi hor leh Shaqiri haddii uu fursad helo waa mid saameyn buuxda ku yeelan kara kooxda kubadda cagta ee Liverpool si lamida Mane iyo Firmino ayaa ah kuwa miisaan culus kula kooxda dhinaca kale Alisson Becker ayaa laga yaabaa inuu noqdo geesiga Liverpool waa haddii uu qabto wax qabad ka fiican ciyaartoydii hore ee u arkeen jamaahiirta Liverpool ee Loris Karius iyo sidoo kale Simon Mignolet isku soo wada duub Jurgen Klopp oo si fiican uga adeegtay suuqa ciyaartoy cusub oo ku soo biirtay Liverpool jamaahiirta Reds oo ku qancay saaxiibadii uu sameeyay macalinka maamulka oo garab istaagay Jurgen Klopp iyo waxyaabo badan oo niyad wanaag ayaa ka caawin kara kooxda kubadda cagta ee Liverpool inay horumar la taaban kara gaarto walow aan loogeyn wax dhici doona markan waxaan siin doonaa dhowr taageerayaal Liverpool ah oo na soo gaarsiiyay muuqaalo ay kaga hadlayaan rajadooda ku aadan fasal ciyaareedka السلام عليكم magacaygu waa Cabdikariin oo jooga xirada qaxootiga 100 mayl dalka Ethiopia sanadkan waxaan leenahay adiga aan taageeray Liverpool inuu guul weyn gaari doono asagoo qaadi doono sida Premier League iyo Champions League iyo koobabka sida FA Cup-ka magacaygu waa Cabdiraxmaan Saciid Faarax Xasan waxaan joogaa Boosaaso bari Soomaaliya waxaan taageer Liverpool sanadka cusub insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan Liverpool Premier League iyo Champions League inaan insha Allah ku guuleysano السلام عليكم تاغياش ليفربول فانس مالو باجوكتان والسلام يا مغعيغا ومحمد كما عليه محمد ناصر وكنول مغالده نيروبي ee wadanka Kenya rajada oo kooxda waa in sanadkan ay qaadaan Premier League insha Allah السلام عليكم تاغياش ليفربول dhamaan wadi salaamaya waa aniga Cabbaas Cumar jooga magaalada Hargeysa hadii aan saadaalay ciyaareedka kooxda Liverpool iyada ayaa kaalinta kood gali doonta insha Allah iyada ayaana qaadi doonta Premier League gool taageerayaasha Liverpool dhamaan yanwa Rahmaan Rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Axmed jooga caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland magaalada madaxda Hargeysa sanadkan wallahi waxaan noo filayaa koobo badan sida koobka Premier League doonayna hanano sida koobka Champions laftiisa rajo weyn ka qabno marka sanadkan waxaan doonayaa aan ku rajaynayo in Liverpool garoonkeeda lagu saxareeyo hal koob bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Amiin Ibrahim Xaaji Nuur oo ku nool magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland kooxda Liverpool waxaan u ahay taageero weyn waxaan aaminsanahay in aanu ku guuleysan karno Premier League iyo Champions labadaba hadii aanu dadaalno nasiib oo amaan soo rajaynaa Liverpool magacaygu waa Cabdiqaadir Jaamac Axmed oo jooga degmada Yaqid Garaan xaafadda Carfaad rajada ka qabno sanadkan ciyaareedkan waxay tahay ilaa wax guuleysan doona ilaa 3 koob iyo Champions League EPL iyo Carling Cup waxaan salaamayaa saaxiibkay Shardino maasanta magacaygu waa Maxamed Sheekh Guuleed Maxamuud waxaan joogaa magaalada Muqdisho kooxdaydu waa Liverpool waxaan u rajaynaa kaalinta koowaad oo ah inay qaado horyaalka mahadsanidin
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdixafiid, waxaan ku suganahay degmada Beledxaawe ee gobolka Gado. Waxaan ahay taageere Liverpool ah, waxaana rajaynayaa seasonkan bilaaban doona inay kooxdu ku guuleysan doonto cup. Waa sida aan rajaynaya 100%. Thanks so much. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdirashiid Liibaan, waxaan joogaa dalka Malaysia. Waxaan aaminsanahay sanadkan inay Liverpool tahay sanadkii ugu cadaadeed after 2009. waana salaamantiin. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Bila Maxamed, waxaan joogaa Muqdisho, waxaan taageeraa Liverpool sanadkan waxaan ka rajeynayaa si fiican bay isku dhigtay horyaalka iyo UEFA Champions League. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ciise Cabdi Ciise oo ku nool magaalada Muqdisho. Kooxdeeda waa Liverpool. Waxaan u rajeynayaa inta koob oo tartamaysa inay ku guuleysato iyo bahda Liverpool dhan kull sanadkan. Alonso iyo Jorginho iyo kulli dhalinyarada soo wish barnaamijkan waa idin salaamaya mahadsanidin. Bismillah, magacaygu waa Cabdiqani Cabdulle, waxaan ahay taageere Liverpool. sanadkan waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo inaan horyaalka meel fiican ka geli doono oo ugu yaraan inaan qaadi doono rajeynaa insha Allah. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa Cabdixakiin Cumar Muuse, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. haddaan isku dayo waxaan aaminsanahay kooxda Liverpool inay xilli ciyaareedkan qaadan doonto koobka Premier League. waxaan u saabinayaa iyadoo lacag badan kharash gareysay oo suuqa gelisay ciyaartoy badan oo muhiim ah soo iibsatay. Liverpool Somali Phoenix, magacaygu waa Cabdinaasir Axmed Xasan oo ku sugan suuq bacaad. rajada aan ka leeyahay kooxda kubadda cagta Liverpool sanad dab inaan horyaalka ku guuleysano iyo koobka FA Cup. Champions League meel fiican ay u rajeynayaa. mahadsanidin. magacaygu waa Cabdicasiis Axmed Xasan, degan degmada Yaaqshiid kaan ahaan xaafadda suuq bacaad. waxaan leeyahay Liverpool sanadkan waxay ku guuleysan doontaa horyaalka Premier League, FA Cup, Carling Cup. Championskana heer wanaagsan ay gaarayna insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan waa salaamantihiin meel baa joogtiin. magacaygu waa Axmed Cali Nuur, Axmed AC naanisteeda AC waaye. waxaan ahay taageera naadiga caanka ah ee weyn ee Liverpool ee aragtaan muddo 20 sano ah. sanadkan hadda seasonkan bilaabanayo 2018-2019 waxay ii tahay sanadkii 21aad ee aan taageero naadiga Liverpool Redska yanwa ayaan leeyahay. insha Allah sanadkan waxaan u rajeynayaa guul wacan ayaan u rajeynayaa naadiga Liverpool maadaama ay tahay sanad ay aad isku dhistay meelihii aan kala liidanayna aan iska xoojinay sida kiibaha iyo daafaca dhexe iyo dhaxda. iyadoo aan dhihi karo wili waxaa noo dhiman hal center back oo Van Dijk ama Livron ku nasto, Dejan Livron iyo hal say ama hal Diashe Diashe oo booska Coutinho Fakir ama Bablisk midkii la keenaba ama Talisco midkii la keenaba. ayaan rajeynayaa Liverpool waxaa u rajeynayaa guul. dhammaan taageerada Liverpool iyo taageerada naadiyada kale ee nala xafaltamo waxaan leeyahay waa salaamantiin. Liverpool guul aan u rajeynayaa, guul wacan ayaan u rajeynayaa naadiga Liverpool. wax badan aan usoo joognay annaga guul darada iyo guushaba intaba waa ku taageeraynaa. mana nihin dadka oo halka mar dhowrka naadi isku taageera, kaliya waxaan ku egnahay naadiga caanka ah ee Liverpool. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. magacaygu waa Maxamuud Sheekh Cabdikariin oo jooga magaalada Muqdisho. waxaan rajeynayaa sanadkan in aan ku guuleysano Premier League iyo Champions League. waa mahadsantihiin Liverpool fans. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan waa idin salaam taageerayaasha Liverpool. magacaygu waa Ibraahim, waxaan joogaa degmada Warta Nabadda. waxaan leeyahay sanadka soo socda hadduu Ilaahay ka raali noqdo in ay ku guuleysato naadigayna Liverpool. gool dhalintan waxaan u rajeynayaa inuu mar labaad oo ku guuleysto ninka la yiraahdo Mohamed Salah insha Allah. sanado badan bacdeen waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano horyaalkeena insha Allah. soo dhawaada dhammaan taageerayaasha Liverpool. waa Xuseen Madar Cawaale oo jooga dalka Itoobiya, taageera naadiga faca weyn ee reer England Liverpool. sanadkan waxaan rajeynayaa in aan gacanta ku dhigi doono Premier League iyo Champions League labadaba insha Allah. sanadkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Haashim Axmed Cabdi, jooga Galmudug Dhuusamareeb. waxaan ahay taageera weyn ee kooxda Liverpool.
sanadkan kooxda Liverpool waxaan rajeynayaa inay qaado 3 koob oo kala ah Premier League FA Cup iyo Champions League wabillahi tawfiiq. السلام عليكم magacaygu عبد الله خضر kasoo hadlay Hargeysa sanadkan hadii aan Liverpool qiimeeyo awoodeeda waxaan isleeyahay qaad kartaa Premier League iyo koob kale maadaama sanadkan ay aad u leeyihiin awood ay koob kasta ay ku qaad karaan ay kuna tartan karaan